Soomaaliya in badan waxay qorsheynaysay oo si diyaarsatay Talyaaniguna kala shaqeynayeen wadamo kalena kala shaqeynayeen in ay ku wajahdo Soomaaliland marka iyadoo timaado soo gacan gasho in ay ku sameeyso annexation marka ay isku bedesho iyadoo isku bedesho maadaama ay jireen niman aqoonyahan oo xilliga wax bartay oo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal kamid ahaa oo ninkii kale la oran jiray Michael Maryam oo kamid ahaa ragii inta badan London ku noqday Ingiriiskuna laha ka daaya nimanka isfahmaysaane tiina gaar wata oo magaranaysaayeen anuguna wax badan ka caawiyo ma nimankaasina oran karaa ma fahamsanayn maxay ahayd qaabka annexation iyo hawlahan aad ka warramayso bise iyaga laftooda talo waa absolutely wala maqli waay laakiin inta anagu research-keegan oo ku hayno waxaan soo ogaanay soo xaqiijinay wadooyinkii la soo maray ma xaqiijin karo laakiin waxaan xaqiijin karnaa mid walba meesha ku dhamaaday Soomaaliya iyadu wax sharciya oo ay lahayd ma jirto laakiin waxay sameysay 7 magac ama 7 entity si adiyada loogu jahwareeriyo qaramada midoobay waxaad ka helaysaa British Somaliland oo ku biirtay Italian Somaliland waxaan meesha joognaa waa Somaliland state-kan United Nations ka diiwaan gashay waa Somaliland magaceedii manipulation lagu sameeyay oo la khalday madaxdeennuna ma fahansana kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan nagala socotaan telefishinka qaranka Somaliland xaruntiisa magaalada Hargeysa waxa telefishinka xaruntiisa xafiiska wararka nagu soo booqday oo aan waraysi kooban ka qaadi doonaa Khaliif Nuur Axmed ama Khaliif Nuur Hagoog oo kamid ah dhalinyarada iyo qurbo joogta u dhaqaaqda arrimaha Somaliland iyo dhinaca ictiraafka kula dhaqan dalalka qaaradda Yurub Khaliif soo dhow marka hore aad iyo aad waan ku salaamay Maxamed oo dhawahay aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta telefishinka qaranka halkan ku soo booqdo oo inaan waraysi ku qaadan waa hagaag waxaanu 34 sanadood u dambeeyay ay dadku maqlayeen in Somaliland ay tahay qaran gooni isu taagay markii horena kamid ahaa qaramada maxamiyada oo ah Ingiriiska iyo xilligii gumeystiga haddana mar dambe waxa lagu warhelay dhalinyarada jiilalkii dambe kacday in Somaliland iyo Soomaaliya ay dalal badan ama adduunyada ama qaramada midoobay ay tiraahdo waa qayb kamid ah Soomaaliya Somaliland marka maqaamka sharci ee midowga Somaliland iyo Soomaaliya muxuu yahay wixii ka dambeeyay 1960kii su'aashaas waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan dadka reer Somaliland runtii dad badan ay isweydiiyaan waxa ugu horeeya waxa weeyaan laba inoo kala qaadana Somaliland maxay ahayd intii u dhaxaysay laga soo bilaabo 26 June wixii ka dambeeyay Somaliland statuskeedu muxuu ahaa bay mid noqonaysaa tadabana waxay noqonaysaa inay haddii ay midnimada la sheegay jirtay sidee bay u dhacday sidee bay wax u khaldanaayeen markaan ku bilaabo ta hore ee ah statuska ama miiqaamka sharci dal ahaaneed ee Jamhuuriyadda Somaliland kadib markay process dheer oo shuruucda adduunka waafaqsan oo ay ka mid yihiin xuduudaha populationka dadka cidda ku nool inay dawlad rasmi ah leedahay iyo inay wadamo kale heshiis la geli karto markaa kadib ayay 26 June 1960kii kala saxeexdeen heshiis madax banaanida u soo celinaya maadaama Ingiriisku protectorate ku haystay horena aynu heshiis la galay Somaliland waxay ahayd dalkii 12aad ee Afrika isla markaana waxay dalkii 29aad ee adduunka ee madax banaani qaata waxayna ku heshay 26 June heshiiska bilateralka ee la gashay wadanka Ingiriiska 26 June waxa dhashay marka state la yiraahdo the state of Somaliland ama qaranka Somaliland oo dhameystiran tadambe su'aasha kale imanaysa ah arrinka midnimada Somaliland waxay doonaysay inay midnimo laba dhinac ah oo rasmi ah oo wixii loogu yeeri jiray Somali Republic inay la sameyso Soomaaliyadii Talyaaniga laakiin Soomaaliya waxay doonaysay iyadoo qorsheysnaa iyo wixii ay Somaliland doonaysay oo ahaa midnimo rasmi ah Soomaaliya laakiin waxay doonaysay wax ka duwan buuha Soomaaliya in badan waxay qorsheynaysay oo si diyaarsatay Talyaaniguna kala shaqeynayeen wadamo kalena kala shaqeynayeen in ay ku wajahdo Somaliland marka iyadoo timaado soo gacan gasho
inay ku samayso annexation marka ay isku bedesho iyada isku bedesho marka Master Khaliif maadaama ay dadku inta badan maqlaan niman reer Somaliland oo xaggan joogay baa bariga midnimada ula yaacay si laablakaca nidaam baarlamaaniyo Somaliland inuu jiray xilliga Ingiriisku siinayo xorriyadda Somaliland qaladkan sharciga ay Soomaaliya ka faa'iideysatay halku ka dhacay si sameeyay khaladkaasi sideedaba wuxuu ku imanaya horta waxyaabo badan oo dawladnimada Somaliland markay madax banaanid qaadatay waxa dhacay dadka reer Somaliland inaanay in badan fahansaneen qiimaha dawladnimadu ay macal kuwan garwadeenka ahaa ayaan fahansaneen waxayna sameeyeen adduunyada waxa jira procedure dheer oo la maro sida caadiga laba dal markay midoobayaan procedure-kaas wuxuu qaataa 2 sano ilaa 4 sano inta u dhaxaysa ayuu qaataa ma aha wax igu soo booda marka sida iyagu doonayeen ma garanayo sida marka iyagu u fakarayeen laakiin waxa dhacay wuxuu ahaa inay Somaliland meeshii tagtay dabeetana Soomaaliya sida si toos ah oo caalamiya ma yeelin madax banaani balse waxay ahayd dal iskii madax banaani ugu dhawaaqay iskii madax banaani markuu ugu dhawaaqay waatan ay dhowr iyo 9 dabeetana inaga markaynu niri nabadgelyo ay nagu soo jeedinayaan dib inagu soo celinayaan oo oranayaan jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday marka dalka rasmiga ah ee gumaysigu oo siiyay gobonimada saxda ah waa 60kii Somaliland absolutely hal state baa meesha jiray halka state-na 26 June state-kii dhashay ee Hargeysa heshiiska lagu kala saxeexday oo ahaa the state of Somaliland marka tii Somaliland u iyaguna kula dhuuqeen hadana sida dhalinyarada u nidhaahdo marka sida laga yimaado ma aha waa wax lagu sameeyay Soomaaliya hadda waxay iska dhigaysaa iyadoo inay Somaliland tahay dad u fiirsato booliiska calaamada booliiska waxay wadataa goodirkii Somaliland ee Somaliland Scout waana sababta ay wax walba isu ekaysiinayso dareyska isaga ekaysiinayso baabuurta militariga ay isaga ekaysiinayso waxa Somaliland leedahay bay mar walba koobiyaysaa because Soomaaliya ma laha foundation dawladnimo oo ay iyadu ku ekaato laakiin Somaliland iska dhigaysaa adigu ma dhinac walba lorku maadaama ay jireen niman aqoonyahan oo xilliga wax bartay oo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal kamid ahaa oo ninkii kale la oran jiray Michael Maryam oo kamid ahaa ragii inta badan London ku noqday Ingiriiskuna laha ka daaya nimanka isfahmaysaane tiina gaar wata oo ma garanaysaayeen aruna wax badan ka caawiyo ma nimankaas in oran karaa ma fahamsanayn maxaa ahayd qaabka annexation-ka iyo hawlahan aad ka warramayso bise iyaga laftooda talo waa absolutely wala maqli waay horta niman la yiraahdo ahaayeen badankoodu Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal la wiiso jir bariga aha waxyaabo badan baa hoos mari kara oo garanaysa la wiiso jir maanta jooga ma garanaysa aragtiisu intay dheer laag tahay dhibaatada ugu weyn ma yahayn oo kaliya in processka midowgu uu khaldanaa laakiin Somaliland waxay doonaysay marka horeba Greater Soomaaliya iyo riwaayadan ayaa sharci darro ahayd oo duulaan wadamo kale lagu yahay sida Ethiopia qayb kamida Kenya Djibouti qayb kamida wax waliba ahayd marka horeba aanay ahayn inay waxa soo kale la sameeyo laakiin si wanaag ilaa iyo maalinta ay nimankaasi meesha tageen ilaa iyo maanta aynu joogno wax sharci ah oo Somaliland iyo Soomaaliya isku xidhaya ama ay nimankaasi saxeexeen ma jirto balse cagsigeeda Soomaaliya iyada Spain farintay iska dhigtay state-kii Somaliland ee madaxa banaana ilaa maanta ku shaqaysanaysa cid ka daba tagtay oo siyaasiyiinteennii intii dalka dib loo soo celiyay ee laga saaray annexation-kii ama qabsigii military iyo siyaasadeed 1991 May laga soo bilaabo looma qaadin tallaabo dhinaca sharciga ah oo Somaliland oo lagu challenge garanayo Soomaaliya iyo United Nations khaladaadka ay sameeyeen procedural error-ka ahaa in heshiisyadii dawladnimo ee Somaliland la siiyo entity kale oo la yiraahdo Republic of Somalia isla markaana lagu diiwaan geliyo madax banaanidii Somaliland lagu qariyo from July 1st 1960 marka kowdan July la leeyahay la saraacay wixii lagu dhawaaqay muxuu ahaa hadii aanay sharci ba ahayn midowgaasi kowdan July waxa lagu dhawaaqay waxa ay ahayd wax la yiraahdo Republic of Somalia
oo ah soomaaliyadooda keliya ah soomaaliyada talyaaniga ah oo aynaan inagu shaqo ku lahayn haddii inaga iyaga waxayna dhex mari lahaayeen entity-ga lagu midoobi lahaa ama meesha wax laga wada hadli lahaaba wuxuu ahaa wax la yidhaahdo Somali Republic oo ah magac saddexaad markay labada la isu tegayaan waa in ay magac saddexaad ku midoobaan mid walba ninkiisii ka yimaado laakiin waxa maanta United Nationska ka diiwaan gashan 20 September 1960 la diiwaan geliyay waa Republic of Somalia oo inagu aan shaqo ku lahayn laakiin gudaha markaad u gasho state-kii Somaliland oo sidiisii ah tii Somaliland ee sharciga ahaydna waxay ka baxday waaba la qariyay meeshaba waa laga saaray marka qaramada midoobay qodobkeeda 102 ee charterka qaramada midoobay wuxuu dhigayaa in dal dee xuduudihiisu cayimayeen shacbigiisa iyo hawlihiisu loo gudbiyo qaramada midoobay tan ay Soomaaliya kaligeed ku shaqaysanayso yaa u gudbiyay ciddii u gudbisayba waxa weeye procedure-ku meeshuu maray iyo halkuu maray iyo halkay ka gudbeen iyo sida ay uga talaabsadeen way adag tahay inagu inaan dhafan garan laakiin inta anagu research-keegan ku hayno waxaan soo ogaanay soo xaqiijinay wadooyinkii la soo maray ma xaqiijin karo laakiin waxaan xaqiijin karnaa mid walba meeshu ku dhamaaday Soomaaliya iyadu wax sharciya oo ay lahayd ma jirto laakiin waxay samaysay 7 magac ama 7 entity si adiyada loogu jahwareeriyo way ka mid tahay State of Somaliland way ka mid tahay Trust Territory of Somalia way ka mid tahay Italian Somaliland way ka mid tahay Somali Republic way ka mid tahay British Somaliland oo ay ka mid tahay Republic of Somalia todobadaas si markaa ay wax mid walba Soomaaliya ku jira dabeetana adiyada si ugu jahwareeriso ayaa magacyadaas samaysay kadibna waraaqo badan baa lagu soo celiyay su'aalo badan baa la weydiiyay Act of Union baa la weydiiyay si markii aakhirkii waa laga aqbalay kadib markuu dhintay gudoomiyihii labaad ee qaramada midoobay ee xilliga Dag Hammarskjöld ayaa lagu wareejiyay waraaqo markaas istaageen Somaliland si buuxda loola wareegay marka qaramada midoobay laftigeedu maadaama dunida dhex u tahay haddana qaladkaas sharci door bay ku lahayd absolutely door weyn bay ku lahayd anigu waxaan qabaa in aanay United Nations u bareerin in ay khaladkaas sameeyaan ama Soomaaliya ay ku taageeraan wax khaldan ama procedure khaldan laakiin waxa meesha ka dhacay waa procedural error iyo beentii Soomaaliya iska daba geenaysay oo aad u fara badnayd iyo xageena cidba ka hadal xageena aan juuq iyo jaaq midna laga oran ilaa maanta la taagan yahay oo Soomaaliyana fursad meel cidla bay dee fursad ka heshayo dadkii reer Somaliland xagan kalena aanay maartay waxaas aad u fahansanaysaa sida hore soo sheegtay absolutely Soomaaliya statuskeeda sharciga ilaa iyo maanta waa UN Trusted Territory of Somalia ilaa maanta sharciyad marka loo eego international law laakiin waxay iska dhigaysaa state-kii Somaliland sababtoo kale waxyaabo badan bay isku khalad marka cidda loo baahan yahay inay arrinkaas si toos ah u jalan gariso waa dadka leh dalkan Jamhuuriyadda Somaliland oo ay ugu horeeyaan madaxda Somaliland ee maanta joogta oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ugu horeeyo baarlamaanka wasiirada maxkamadda sare cid kasta oo arrinka wax ka qaban karta waa inay si degdeg ah u challenge garayso Soomaaliya iyo United Nations waxa Somaliland hawada laga qariyay oo maabka adduunka laga masaxay 1 July waana sheeko u sii qorshaysnayd oo aan ahayn wax isku soo boodaa waayo process ku dhamaan lahaa 4 sanadood ayaa lagu soo koobay hal maalin baa la yiri Soomaaliya qaatay madax banaani isla maalintii baarlamaanka baa fadhiistay waa la midoobay baa la yiri isla maalintii baarlamaanka baa fadhiistay gudoomiye baarlamaan baa la doortay la yiri isla maalintii baarlamaanka baa fadhiistay madaxweyne la doortay baa la yiri incredible suurtagal ma haddii Somaliland marka la aqoonsaday 26 June 1960 waliba waxa la sheegay dhowr iyo 30 dal marka ay sida ugu maqaalada haddii ay sax tahay ay aqoonsadeen oo muddada aad ka koobanay ay aqbaleen madax banaanida Jamhuuriyadda Somaliland maxaa keenay marka in Somaliland ay qaramada midoobay u gudbi weydo codsigeeda madax banaanida codsi madax banaaneed Ingiriiska ka ahaa United Nations ka qayb waliba Security Council ka tirsanaa wuuna u gudbiyay
uu ku qasbanaa in maadaama isagu United Nations qayb ka ahaa sharcigii madax banaanida iyo heshiisyadii Soomaaliland wada galeen United Nations ugu gudbiyay waana kuwan ay Soomaaliya marka dambe si dadban u isticmaalayso halkaas oo kaliya kuma istaagin Soomaaliya waxay xitaa ku register gareysay in heshiisyada iyadu gashay iyadoo Ingiriiska heshiisyada la gashay maanta baarlamaanka Ingiriiska dad gasho waxaad arkaysaa in heshiisyadeeni 26 Juun la galay ee Maxamed Xaaji Ibrahim Cagaal iyo ragii la socday ay soo saxeexeen waxa ku qoran maanta in Soomaaliya iyo Ingiriiska heshiis ka galeen taasoo aanay de Soomaaliya wax la yiraahdo xilliga jirin meel la joogin aqli galna aan yahay ma heshiiska nimanka Somaliland ka socda ee Somaliland British ka socday bay Soomaaliya ku qorantay absolutely maxay kula tahay xalku in imaka arinta laga dabeeyay karo halka laga dabeeyay yaala Somaliland halka laga dabeeyay kara waxa weeyaan Somaliland inay isticmaasho sharciga caalamiga ah oo ay xuquuq bay leedahay Somaliland waxay leedahay xuquuq buuxda oo dal kasta oo adduunyada ku yaala uu leeyahay ay leedahay waa inay markaa taas isticmaasho waa inay United Nations ka challenge gareyso waa inay weydiiso sababta ay madax banaanida Somaliland u register gareyn waayeen waa inay weydiiso sababta ay treaties-ka ama heshiisyadii Somaliland iyo Ingiriisku ay wada galeen sababta Soomaaliya lagu wareejiyay cidda siisay authorities waa inay weydiiyaan sababta ay Soomaaliya adduunyadu ama United Nations ugu register gareysay British Somaliland ugu register gareysay qaramada midoobay markii ku jirto qaramada midoobay waxaad ka helaysaa British Somaliland oo ku biirtay Italian Somaliland xilliga aanu hadlayno waa July 1st wixii ka soo bilaabma wax la yiraahdo British Somaliland ma jirin waxa jiray the state of Somaliland kaliya British Somaliland was died ama way dhimatay 25 June 1960 kadibna lama isticmaali karo waa mamnuuc qaabkan markii dambe 1991 ay Somaliland goonida ugu istaagtay hadana isagu sharci ahaan qaabkaasi wax khalad ma ku jiraayo Somaliland caqabad kaga noqonay dhinaca madax banaanida iyo khaladaadka hor la soco goonida u seegtay lama oran karo waxa la oran karaa dalkii occupation lagu haystay ama annexation lagu haystay iyo genocide socday oo la soo afjaray oo xoog lagu soo afjaray oo SNM soo afjartay ayaa dalkan dib loogu hantiyay lamana oran karo gooni bay uga go'day ama gooni bay uga baxday waayo xoog baa lagu haystay xoogna way kula soo noqotay laakiin halkaasaan laga sii raacino tii sharciga ahayd baan la soo dhamayn oo xididkii baan loo siibin problemkii baan xididka loo siibin dii la doonayo problemka xididka loo siibo problemku wuxuu yaalaa uu ku jiraa meel kale maaha waa kursiga qaramada midoobay ee Republic of Somalia kursigiisa garaysan tahay ee Somaliland ay leedahay dokumentiyada Somaliland ku dhex jiraan waana sababta ay ku sheeganayso Soomaaliya waana sababta loo qariyay madax banaanida Somaliland waana sababta territorial integrity Somaliland dhulka loo hoos dhigay oo laga dhigay inactive akskeedana laga dhigay in Soomaaliya leedahay territorial integrity wax leedahay oo ah xuduudo dhowrsoon kaasoo aan Soomaaliya sideeda yeelan karinba because Soomaaliya lama wada haba xuduudo United Nations meesha la yiraahdo Ethiopia lama laha xuduudo rasmi ah loo saxay marka macquul ma aha in Soomaaliya heshay meel ay ka dhaafto sharcigii 1933 la ansixiyay Montevideo Convention iyadoo 27 sanadood kadib meel ay kale ay ka dhaafi kartaa ma jirto dalku waa inuu xuduud lahaadaaba ugu horeysaba ma dhici karto marka qaab khiyaama ayuun bay meesha ku gashay mooyaane laakiin sinaba suurtagal maaha inay Soomaaliya madax banaan heshay waxaan meesha joogana waa Somaliland state-kan United Nations ka diiwaan gashay waa Somaliland magaceedii manipulation lagu sameeyay oo la khalday madaxdeennuna ma fahansana fariintan u dirayana waxa weeyaan fariinta ku soo gabagabay halka u dambeeya ee dawladda iyo shacabka iyo cidii kale ka shaqeysa dowladda Jamhuuriyadda Somaliland oo maanta ugu horeeya Cabdiraxmaan Ciro baarlamaanka cid kasta oo hawsha wax ka qaban karta ama cid kasta wax ka qaban kartaa doonaysa in wax ka qabato halku wuxuu ku jiraa in arrinka la challenge gareeyo la weydiiyo United Nations-ka lala kaashado dadka muwaadiniinta ee arrimaha soo baaray ee wax ka og la hayr gareeyo
looyaro caalamiya looyarada caalamiga ahina inay hawsha si degdeg uga howlgalaan wax kale ayaan lagu werin kaliya kursiga qaramada midoobay beenta laga sheegay qarinta stateki Somaliland la qariyay oo dhibaatada ka jirta meel kale kama jirto Somaliland waxay la mid tahay dalalka kale ee adduunka Ethiopia Kenya whatever UK ila iyo Mareykanka ay Somaliland la mid tahay as a state laga hadlay aad baad maasan tahay Khaliif Nuur Hagoog oo kaaga mahadnaqaynaa waqtiga qaaliga ah ee nasay aad iyo aad baad mahadsantahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.